shir madaxeedkii saddexaad ee dalalka carabta ee arrimaha dhaqaalaha oo ka socday magaalada Riyaad ee caasimadda dalkani boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta si rasmi ah ugu soo afmeermay iyadoona shirkaasi uu Soomaaliya kaga qaybgalayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka mid ah madaxda shirkaasi ka qaybgalaysa ayaa xalay halka ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay dhibaatooyinka adag ee haatan ka jira qaar ka mid ah wadamada carabta iyo sidii markaasi looga bixi lahaa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya isagoona shaaca ka qaaday in la gaaray xilligii wadamada carabta ay garab istaagi lahaayeen walaalahooda Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa si gaar ah u xusay in Soomaaliya baahi weyn u qabto sidii gacan looga geysan lahaa kobcinta dhaqaalaha, dib u dhiska dalka, kor u qaadidda caafimaadka, maalgelinta mashaariicda iyo horumarinta arrimaha bulshada. intaa kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si gooni u qaabilay madax ka mid ah wadamada carabta isagoona la kulmay madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi waxaana ay ka wada hadleen cilaaqaadka labada dal ee Soomaaliya iyo dalka Masar. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale qaabilay madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabbo Haadi Mansuur iyo weliba amiirka dalka Kuwait. gabagabadii shirkaas waxaa shir daraa'id si wadajira warbaahinta ugu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Amiir Sacuud Al Faysal, wasiirka maaliyadda dalka Sacuudiga iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta Nabil Al Arabi. dhammaantood ay ka jawaabeen su'aalo ay wariyaashu ku weydiinayeen oo la xiriiray ajandooyinkii ugu waaweynaa ee markaasi looga hadlay shirka lagu horumarinayo dhaqaalaha wadamada carabta iyadoona shirkaasi uu ku soo gabagaboobay jawigii loogu talagalay. cabduqaadir qayska, warbaahinta Risaala, Riyaad, Sacuudi Arabiya.